والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد walaalayaal waa qeybtii labaad ee ku saabsanayd axkaamta soonka. aan kasoo hadalnay qeybtii koobaad waxyaalaha cuntada iyo khiraabka iyo waxyaalaha bedelkooda geli kara oo soonka buriya. waxyaalaha aan burin soonka waxaa kamid a sidoo kale daawooyinka loo isticmaalo neefta oo buqaaqa maaragta afka lagu buufiyo oo qofka markay neefta ku xiranto oo kale ayada waa neef ama gaas. culamadu waxay yidhaahdeen wax culays ma lahan qofka maalintii soonka sooman hadduu isticmaalo wax culaysa ma lahay dhahaan, maxaa yeelay shay maaragta caloosha gaarayana ma aha, shay maaragta cunto oo noqonayana ma aha, waa shay iska neef ah waay. sidoo kale waxyaalaha aan burinaynin soonka waxaa kamid ah alkuxlu, waxyaalaha indha kuulka. qofka hadduu indha kuusho ama nin hadduu ahaado ama dumar hadday tahay labadaba maaragtay haddii ay qofka uu indha kuusho ayadan inuusan culays uusan lahayn. waxyaalaha kale sidoo kale burinaynin waxaa kamid a soonka in qofka hadduu daawooyinka indhaha isticmaalo ayadan wax culaysa ma lahan. wax qiyaas oo lagu qaadan karo midda sanka iyo afkana ma jirto. sidoo kale qeybta labaad oo axkaamta siyaamka kamid a waxay tahay anniya. saan wada ognahay soonka camal kastoo cibaado ah wuxuu u baahan yahay niyad ayuu u baahan yahay, liqowlihi sala allahu alayh waalihi wasalam man lam yujamic asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu. qofkii aanan go-aansanin oo niyeysanin soonka biri inuu soomaayo fajarka ka hor, salaad subax ka hor, amaba waxaa laga wadaa fajarkii saadiqa intuusa dilaacin qorax usa soo bixin ka hor, qofka aanan maaragtay niyeysanin soon uma sugnaano. marka waa waajib qofka maaragtay habeen kasta inuu ku seexdo maaragtay soonka inuu soomaayo. waxaana sugnaanin in maaragtay dadka qaar loo laqino masaajida qaarkood loo laqino la yiraahdo nawaytu sooma liqadin qadan la yiraahdo, taasi ma sugnaanin nabiga sal alay wasalam walaa salaf saalix kama sugnaanin. keliya waxaa lagu gaabsanayaa qalbiga ayaa lagu gaabsanayaa, qalbiga ayaa lagu gaabsanayaa. maxal waxaa yahay anniyatu maxaluhaa alqalbu, maxalkeeda maaragtay waa qalbiga. qeybta saddexaad oo axkaamta siyaamka waxaa kamid a in dadka muslimiinta ah ay aada ugu baraarugaan dhibaatada maanta jirta. waad ogtihiin walaalayaal in maaragtay dadkii ay cudurkan coronavirus inuu dhib badan keenay oo dad badan oo muslimiinta kamid ah camaashii ay shaqaysan jireen, shaqooyinka shaqaysan jireen maaragtay culays badan ku yimid oo meelihii ay maaragtay ay wax ka raadsan jireen ay dhib ku dhacay. marka dadka muslimiinta waxaa laasim ku ah kuwooda ilaahay wax siiyey inay afuriyaan, dadka muslimiinta inay afuriyaan oo guryahooda ay cuntada ugu geeyaan. khaasatan waad ogtihiin waqtiga dhibaatada ay jirto way ka fadli badan tahay sadaqada, waqtiga caadiga ah way ka fadli badan tahay. nabiga sala allahu alayh ali wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi man fadala saa'iman kaana lahu mithlu ajrihi min gayri an yunqasa min ajri saa'imi shay-a. marka qofkii ruux sooman afuriya ajirkiisoo kale u leey, ayadoo qofkii soomna ajirkiisana waxba laga taabanin. taasina waa raxmadda ilaahay subxaanahu watacaala ummadda uu naxariistay. marka qaab kastood ku geyi kartid cuntada uu geyi kartid dadka muslimiinta, sidaas ayaa fadli badan in dadka wax la deeqo, cunto bisil la gooyo, kuwa bisil wax bisil loogi karo. dadka iskaabulada hadda waad aragteen beryahan dambe guryihii iskaga baahan yihiin, maqaayadihii way ka xiran yihiin, waan wada ognahay. dadkaasoo dhan marka laga ajirsado ayaa maaragta dadka muslimiinta ayaan ugu naseexeyneyna. salafu saalix raximahum allahu tacaala aaday ugu dadaali jireen sadaqada, ayagoo ku dayanaya nabi maxamed sala allahu alayh ali wasalam waqtiga soonka asagoo aada u bixin jiray waxyaalaha ilaahay siiyey. sidaa daraaddeeda waxaa ka sugnaatay inay maaragta ay dhihi jireen in dad 10 qofood oo dadka asxaabteyda kamid a cunto ay jecel yihiin inuu u kariyo oo ay mataqaanaa maaragtay cuntadaasi ay cunaan, ayaa waxaan ka jeclahay oo yidhi inaan xoreeyo 10 qofood oo min walad ismaaciil oo dadka quraysh ku abtirsada ilmahooda oo addooma inaan xoreeyo ayaa iga fadli badan. sidaas ayay mataqaanaa dadka muslimiinta ah maaragtay aada u dadaali jireen salafu saalix iyo keyrkooda asxaabadii rasuulka sal alla alay wasalam inay dadka afuriyaan oo waqtigaas ay ku dadaalaan. xataa ciidaha markay soo dhawaadaan in maaragtay la siiyo dharkii iyo waxyaalihii ku farxaayeen dhan in la siiyo, ayadana maaragtay waxyaalaha oo muslimiinta ay iskugu gargaaran ay kamid tahay. marka qeybta afaraad waxay tahay
xukmu man akala wa shariba naasiya qofka wax cabay ama wax cunay asigoo hilmaansan marka waxay leedahay culamadu waxay leeyihiin fasawmu saxiix soonkiis waa sax wax culays ma lahan waxaana daliilu ah nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi qofkii wax cuna oo wax caba asagoo hilmaansan fa inamaa adcamahu allahu wasaqaa alla ayaa quudiyey waraabiyey marka soonkiis wax culays ma lahan wax kafaara ma lahan wax qadaa ma lahan soonkiis waa sax sababtu maxay tahay hilmaan ayuu ku yimid ee ikhtiyaar kuma imaanin ee qofka cuntada si ikhtiyaari u cuna oo maaragtay amaba si ikhtiyaari wax u caba amaba si ikhtiyaari maaragtay xaaskiisa ugu taga kaas waaya marka midka soonkiisa uu buraayo kan wax culays ma laha qeybta shanaad oo axkaamta siyaamka ka mid a waxay tahay xukmu jimaaci as-saa'imi fi nahaari ramadaan qof sooman oo maalin ramadaan xaaskiisa mataqaana u tegay xukunkiisa muxuu yahay marka xukunkiisa waa xugun weyn marka koowaad waxay tahay qofkaasi waa dambaabay dembi weyn oo ku dhacay oo toobatan nasuux inuu alla ugu toobad keena ah maalin ramadaan oo maaragtay alla xaaraantinimeeyey waxaasoo dhan ayuu ku dhacay midda labaad soonkiisa waa fasaadayaa oo maalintaas uma jirto midda saddexaad waxay tahay waxaa ku laasimayo kafaaratu lmuqabada kafaaradii adkayd oo ahayd inuu maaragtay addoon xureeyo hadduu awoodinna maaragtay ou quudiyo 60 miskiin ou quudiyo hadduu awoodinna oo soomo 60 maalmood oo 2 bilood oo xiriirta hal maalin ayaan laga afuri karin ayaa ku laasimayso taasi marka waxa weeyaan waa ninkii haweeneydii ayadana ficilkii oo la dhacay sidee la yeerayaa marka culimada waxay u qaybiyeen labay u qaybiyeen haddii marka asiga uu ayadoo aanan ogeyn maaragtay iska jiifto oo ku boobay oo sidaas maaragtay culayska uu ku yimid waxay leeyihiin ayada soonkeeda fasaadayo qado baa laga rabaa ee kafaaro maaragtay ku imaamayso ama hadday raali ka tahay ayada raali ka tahay ay ku ballamaan ayadoo og in la sooman yahay ay ku ballamaan ayadii ininkeedii inay maaragtay sameeyaan jamaaca ay sameeyaan maalinkaas ramadaan ayadana sidoo kale waxaa ku laasimayo soon qada iyo kafaaradaas adag ayaa maaragtay ku laasimayso qaybtii labaad insha allahu tacaala halkaas in kusoo koobaynaa hada bila tawfiiq sala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi waasxaabihi wasallam bi ihsaan ila yawmi ddiin